السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا وضع ورك تي في مايلين warkaanuu deeray magaalada Beledweyne ee gobolka Gada iyo dagaal culus ka dhigay xalay Geega. Dowladda Soomaaliya sheegtay in Beledweyne haweerartii jabhada falaagida oo huwaysay dowladda Kenya. Dowladda Kenya ayaa isla markii ku jawaabtay hadalka dowladda, laakiin dowladda Kenya way horay in beenisay in faragelin ka haysta gudaha dalka Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbooyinka iyana dhansho sheegeen in ciidanka daraawiishta Jubbooyinka la weeraray dagaalkana sidaas ku bilowday. Kureed ciidanka isla galaan magaalada Beledweyne. Dagaalka ayaa saacadooyin hiraabta hoog in ka socday Beledweyne may sababay dhimasho dhaawac oo ka jaran dad qoys ah. Wararkaas dowladda sheegtay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya mardhow in hadalay warbaahinta sheegay in ciidanka dowladda jabiyeen jabhadii haweerartii ee Beledweyne. Usmaan Abuukar Dube may sheegay in maxaabiis badan la ku qabsaday dagaalka. may hadalshay ka sii daray haddana ciidanka dowladda galanta ka hayaan magaalada Beledweyne. Warkii isin kala socotaan TV-ga Myland inta ninka eegi